قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. walaalayaal meel lagu nagaado masaajidka ugu khayr badan, hadal la maqlo oo la dhageystana waxa u khayr badan waa hadalka Ilaahay jalla wa ala iyo hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam. kulligana waan baahannahay oo Ilaahay baan u baahannahay. yaa ayuha nnaasu antumul fuqaraa, Ilaahay baa leeyahay ayuha nnaasu dadow antum alfuqaraa, kuwa baahan baa tihiin baa Ilaahayna leeyahay. laakiin maxaad u baahan tihiin? Ilaahay ma dhihin lacag baad u baahan tihiin, Ilaahay ma dhihin cuntaad u baahan tihiin, Ilaahay jalla wa ala ma odhan daaro iyo aqalaad u baahan tihiin. Ilaahay wuxuu yidhi antumul fuqaraa'u ila Allah, Ilaahay baad u baahan tihiin. mar walba bini aadanku waa kii baahan, baahi fara badanna gudaheena waa lagu abuuray ogaada. dharka baahi baad u qabtaa, aqal iyo hoy baahi baad u qabtaa, cunada baahi baad u qabtaa, acabka biyaha baahi baad u qabtaa, oksijiinka hawada baahi baad u qabtaa, xaas iyo ubad inaad yeelatana baahi baad u qabtaa, kasbi iyo shaqo inaad yeelatana baahi baad u qabtaa. waxaasoo baahiya isku wadagee. baahida ugu muhiimsan ee bini aadanku ay leeyihiin waa hidaaya, alhidaaya. waa mas'alada keliya ee ku soo aroortay suuratu lfaatixa oo qofku mar kastuu tukanayo, hadduu fara tukanayo, hadduu sunno tukanayo, uu leeyahay ihdina asiraata almustaqiim. baahida bini aadamkuna way kala weyn tahay ogow. baahi baad u qabtaa dhar, baahina waxaad u qabtaa daawo. dharka iyo daawada, dharkaa muhiima. haddaad iminka aqal aad tagto oo tidhaahdo labada baahi bay haysa, daawona waan u baahanahay, dharna waa dhar la'aanna way haysaa, waxaa lagugu jawaabayo lagu odhan war annagu daawo lacaguma haynee, laakiin mare aad cawradaada ku asturta waan haynaayo hoo baa lagu odhan. haddana baahida dharka aad u qabtid iyo baahida bini aadanku ay u qabaan maaragtaanay cunnada, waxaa muhiima baahida cunnada. haddaad tidhaahdid dharna waan u baahanahay, gaajana way haysaa, waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo dharkuuma hayna haddee, laakiin waxaan ku haynaa cunee, bal cunnadahan ku siina fadhiiso. laanna ilaahay waa og yahay shayba shaygaad uga baahi badan tahay buu ilaahay ka dhigay rakhiis. adoo haddana laba baahi ay ku haysa aqal wada garaacay, baahida cunnada iyo baahida acabka. waxaad tidhi gaajana way haysaa, oonna way hayaa, haalo cunta xaafadda xilligan ma taalle, laakiin biyo ayaalle, biyahan ku siina fadhiisa baa lagu odhan. biyihii buu ilaahay ka dhigay rakhiis. baahida bini aadanku ay u qabaan biyaha
iyo baahida bini aadamku ay u qabaan oxygen hawada midkee muhiima oxygenka ilaahay waxa uu ka dhigay free cid kugu kontroolaysa ma lahan meel kastoo tagto hawada waad helaysaa baahida aan hawada u qabno iyo baahida aan u qabno hidaayadu waa ilaahay macrifadiisa waa ilaahay garashadiisa jalla wa ala waa in ilaahay qalbigaaga islaamnimada uu ku sharxa inay tahay diin xaq ah faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam aayaddaasi markay soo degtay uu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada dushooda ku akhriyey qofka ilaahay jalla wa ala uu la damca inuu hanuuniyo laabtiisa ilaahay ku sharxaa islaamnimadu inay xaq tahay markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hidaayaddu waa nuurka ilaahay mooyaane cid kale ma hayso qofka ilaahay nuurka qalbigiisa uu geliyey buu rasuulku yidhi qofka xubnihiisa ayaa u jajabnaaday ilaahay inay adeecaan hadduu nuurkaasi qalbiga galo allah inuu geliyo wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نهدي به من نشاء من عبادنا بإلهي ونور كاس إلهي ما يعني عدك لمن بالكدو قفك إلهي ودونو قلبي سنورك كتورا الله إنه كتورا آمين هذا ولا ليال markaa bay saxaabadu yidhahdeen nebi allow oo nuurkaasi qalbiga inuu galay wax calaamadoo lagu gartay ma jirtaa ma loo sheeg markaa buu nebigu yidhi haa attajaafi can daari lguruur buu nebigu yidhi qofka ilaahay qalbigiisa hidaayadda nuurulhidaaya qofka qalbigiisa ay biyo dhigtay waxaa lagu gartaa attajaafi can daari lguruur daartan dadka dagaysa ee khiyaaliga ee beenbeenta ee kasaraabin biqiica uu ilaahay ku tilmaamay ayaa qofkaasi ilaahay qalbigiisa ka jeediyaa ma qiimeeyo adduunyada walaa dadka adduunyada haystana ma qiimeeyo meesha adduunyada lagaga hadlayana ma qiimeeyo walinaabatu ilaa daari lkhuluud buu nebigu yihi sifada labaad wuxuu nebigu ku sheegay qofka qalbigiisa nuurka ilaahay uu geliyey calaamadda labaada lagu garto waxaa ka mid a daarta lagu waaryayo ee bini aadamku marna aysan ka guurayn allah inageeyo waa jannadee daartaasuu qofka muuminku jecladaa buu rasuulku yidhi qoloftiisa unba adduunyada taalle mooye muuminka qalbigiisu jannadu yaallaa sidii saxaabigii aburayxaana radia allaahu canhu khaswad buu ka soo noqday zamanka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ninku markuu diinta dadaalkeega iyo jihaadka u baxo ama dhaawac ama dhimashaa lagu tirinaya labadaa midunbaa la filaya inuu la soo noqonayo laakiin aburayxaana waxaa ilaahay nabad soo celiyey isagoo nabad qaba leanna mar alle markuu salaaddii ceshaay uu tukaday buu gurigiisii tegey haweenaydiisii oo u diyaara ayaa ku soo boodo markaasuu ku yidhi in yar laba rakacan tukada ii kaadi buu ka yidhi taxiyatan sunnihii salaatalcishaha ka dambaysay iyaku guryahay la tegayeen innaga maanta waxaa laga yaabaa dadka muslimiintu sunnahana masjid bay ku tukadaan faraa'idana masaajiddii baan ku tukannaa salaaduu addoonku tukada buu nebigu yihi salaadda ugu fadli badan waa salaadda uu qofku gurigiisa ku tukanaayo ilaa faradka mooyaane ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة كسته أو فرض مركو نبي كبح وعد مجدناي أما أمده وحبراي أما نصيح أمده وجدناي أما كوا صو إسلامي بدين تبراي أما كقرآن كلبراي أبو رنجر محل أبو براي أما مرتدى مسجد كتيم ديب النبي كل فري سنة أما سنها وح النبي قال لك سو أروريين وجري صلاة رنجر صلاة سنها عدد بالصحابة الهايين سي أي جريهنا أي بركة صلاة iyo naxariista salaada ku soo dagaysa ay guryuhu nasiib ugu yeeshaan oo ilmaha yarna ugu akbar baaro hooyo iyo aabba cibaadaysanayo diin leh ayaa nebigu inoogu jideeyey salaad lagu tukado salaad sunno oo la tukado salaada ugu fadli badan waa salaada qofku uu gurigiisa ku tukanaya ilaa faraa'ida mooyaane abu rayxaana salaadii buu gurigu la yimiday haweenaydiisii baa ku soo boodo markaasuu ku yidhi ii kaadi han sunnaystee laba rakac tukaday sidoo laba rakac ugu taagnaa wuxuu maqlay muadinkii oo u dhawaaqaya salaat alfajrkii haya ala salah haya ala alfalah haya ala salah haya ala alfalah sunnihi buu khafiifiyey masaajidkii buu tagay uu soo tukaday markaasay sugtay ku tiri ya aba rayhaan ghazawta ilaahay dartii baad u baxdo jihaad baad ku maqnayd waad soo daasho safarna waad ka timiday adoo nabad qabana ilaahay waa noo ka soo celiyay aniguna xalay oo dhan faraashka dushiisa kugu sugaayay
adiguna salaadun baad ku jirteen miyaanan xaq anigu kugu lahayn bay ku tidhi markaasuu ku yidhi xalay toole hal mar oo keliya haddaad maskaxdeeda ku soo dhici lahayd xaq waad ugu yeelan lahayd buu yidhi laakiin marna kuma xasuusan buu ka yidhi oo maxaa iga kaa mashquuliyey wuxuu yidhi xuuralcaynta iyo naciimta ilaahay jannada ku sifeeyey buu xalay qalbigaygu joogay buu yidhi bilaahi calaykum iminka inteenna halkaa masaajidka soo gashay haddii la yidhahdo war 10kii daqiiqo eed salaadda aan imaamka gadaashiisa ku tukanaynay qalbigeennu halkuu ku maqnaa maanta waa labada marxaladood ee la garto qalbigu ma saliimba mise waa mariid qalbigu muu bukaa mise uu caafimaad qabaa laba marxala la gartaa laba marxaladood cinda asalaa markaa salaadda tukanaysid kow iyo cinda almusiiba markay musiiba kugu dhacdo waa labada marxaladood ee lagu teesteeyo qalbiga muu caafimaad qabaa mise uu bukaa salaadda markaad tukanayso 10kaa daqiiqo 12kaa daqiiqada imaamka gadaashiisa aad ku tukanaysid qalbigaagu xaggee buu ku maqnaa lidaalika ibn qayim aljawsi raximahullah dadka salaadda tukanaya 5 buu u kala qaado wuxuu yidhi qolo salaadda ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi buu yidhi waa kuwee waa kuwa salaadda marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadeedii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yidhi fawaylun lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun salaadda way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaaddooda ilaahay waa ku cadaabayaa baa la yidhi qolada labaad waa qoladee salaadda way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajiddana way yimaadaan laakiin qalbigoogu xaadir ma aha min albidaaya ila annihaaya salaaddoodu waa sahwi kuwaana salaaddoodu ilaahay bay hor taallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhahdeen salaadda saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaadda jamaci iyo jamaacaddii masjidkuu ku ilaalinayaa laakiin markuu salaadda yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu shaydaanku la tegayaa deedna uu ka soo celinayaa haddana uu la tegayaa uu ka soo celinayaa kaa salaadda intuu la yimidana ilaahay baa u qoraya oo ka aqbalaya inta ka dhimana ilaahay waa ka cafinayaa baa la yidhi salaadda saddexaadna waa salaadda maaragtaane awliyada istaciinuu biالصabri والsalaa waa kuwa maaragtaane xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ceedceedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey haddii abaari ay timaaddo salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey haddii masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaaraa loo jideeyey istaciinuu biالصabri والsalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaadda shanaadna waa salaaddii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa salaadduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaadda inoogu raaxay han ku raaxaysanne xubiba ilayhi min addunya halaaث adduunka waxa yaalla 3 baa aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey aiibu waxa wixii udugee udgoon waannisaa iyo haweenkana waa lay jeclaysiiyey wa jucilat quratu cayni fi الsalaa halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayaana salaaddaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaaddaasay barteen iyaku inay salaadda ku raaxaystaan in salaaddu ay u noqoto meel markay salaadda ay xidhaan adduunyadaba ay ka tegaan nin culammadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaadda xidho haabit albunaani baa loodhan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay si aad ku hesha adigu salaadan mar alli markuu salaadda tukanay lilmadaa ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli الsalaati ل20 sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaadda ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buu yidhi salaaddaas kayfiyadda salaadda aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu yidhi niman yaho anu safka markaan gala buu yidhi imaamka aan gadaashiisa istaageen salaadda xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha
halkaasaan markaa ka xidhaa buu yidhi salaadda inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa ucbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayna ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaya wuxuu yidhi markaa waxaan ka fikiraa markaa salaadda dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaadoo la yidhi ilaahay baa kuu yeedhay oo xisaabtaa lagugu yeedha soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dambeeyey oo la qaaday kii iga horreeyey oo la qaaday waxay salaaddu ii dhammaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha keligaa baa ku hadhay haddaa ilaahay kuu yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenkaa iyo shucuurtaa baan salaaddeeda ku dhammaystaa buu yidhi haye raisli ninkuna dareenka ku dhammaysataan masaajid annagoo habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat alcishaa وأما إن كان من المكذبين الضالين مساجد قدام بعد آمين وركعت إلا بعد صلاة العشاء أنا وأكجرا صفقة هوري صلاة دي مركي لقى بحيب إمامكم يدي ورا آمين تلا بدل كذا كنتن والله من حقه أم بلابه والله بلابه نبلا والله وأكون ضربه لا إله إلا الله أرجع مدة الشيخ كواس ويبقى قيلينه واحد ما أنت مسلمين إلا من رحم ربي مساجد كنت كان يوردن وإن قد قيلين مويان أدو يدوي كل جا جودها كوضح هذا الله بيقول والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك يقف النور الهداية أي دكتور وحلقوا قرتابو يد رسولك دار توارتانك وصاحبك إلا قدام بين يوم أي قفك مؤمنك قلبك سجع عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحكم ذا يولي رسولك انت قفك مؤمنك أجش أيسن كوئما أسقع دمشق وديار من منا لا يكره الموت كما أنت مسلمين تا نولش يجريدا نولش جعله أشياء ماتريال كي العقدة يا عملك الصالحة قلبي إنه هذا دباتة إنه قلت ما دوحه إلنا يا لعقته إلنا يا وحول العقد هذا يسمى مشاكلك ويحل اسمه خالق يا مخلوق أنا ما أنت مضوا كلا قرن لا ضحيبة خالق يا مخلوق إلهي ما دونا يا قلبي عمالك لإنه وجهه إلا حق سمويانه وما شيء إلهي أدونك وكفير يبو رسولك لقلبه علينا أن نحسن منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقة هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكل ولا فدي كور ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا يرجك لا يبريك لا إلى بريدي سي عبسي دي سمو يعني وحمنت كلية جرك الله شاقين كليته القلب قعمه هو اللبو لقوه هو اللبو عنده هو اللبو سنكه هو اللبو دبنه هو اللبو دقوه هو اللبو وفرسه كليه هو اللبو قربه هو اللبو بوذده هو اللبو لكن قلبك وامد كلية بحال قلبك امد لوغا دغاي وحبنت كلية جرك بني هذا كما مشب رسولك يدي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرك بني آدم كا هدي حقاقت جرك ودن با حقاقي هدي باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول هدو قلبك حقاقو قلبك محوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا هدي قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدم كو وحي نقونيان حبنا مرنا إلهي عن عسيان كيسا كو دعين مرنا إلهي إني عاصيان وأدكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيان
dhagaheenni waxay maqlaan bay dhegaysanayaan gacmaheenni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheenni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheenni meeshaan rabnaa ku bixinaynaa hadalkeennii meesha waxaan doonaan ku hadlaynaa waxaan doon xasan albasri raximahullah ayaa yidhi 30 sano maan qoslin 40 sanana maan kaftamin waxaan soo gaadhay rag iyo aqwaam waxaan soo gaadhay aan markaan la joogo aan isku malaynayay inaan anigu tuugahan isku malaynayay buu yidhi waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkii taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadalkaa leh 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaadhay aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sidaa leh hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xoogga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waata dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseyne way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buu yidhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buu yidhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalina innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratulmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leehay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi awriyaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adaad ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baanu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiis waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifa tahe maxay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey maxay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhiray mooyaane waxaa nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindha iyo kaadiyo dhiig iyo biyaa kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan
anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60kaa sana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay haddaad 60kaa sana adduunyada aad joogtid aad ku noolaatid addoonnimo maalintaad naftu ay kaa dhacdeed ka baxda adduunyada adiga waxaa ku bilaamaysa xorriyad baa ku bilaamaysa xorriyad nin saalixiinta ka mida kaana yasuuma الnahaar wayaquuma اleyl sakaraadkii markuu qabtay buu qosol bilaabay qosol nin xanuunsan oo qoslaya ka warno sakaraada markaas marka waa ma saacaddan aad hadlaysaa baa lagu yidhi ma saacaddan aad kaftamaysaa ood qoslaysaa wuxuu yidhi ohin anu aan dhammaystay buu yidhi maanta laga bilaabaa farxadda ay bilaamaysa buu yidhi ibn cabbaas radia allahu canhuma nacashkiisa markii lagu qaaday qabriga la geliyey haatif waxaa la maqlay aayaddan qur-aanka ku celcelinaya yaa ayatuha الnafsu اlmuطma'inah irjicii ilaa rabbika raadiyatan mardiya faadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii waayo 9 sano ama dhowr iyo 80 sano waxaa ku dhammaystay oohin buu ku dhammaystay noloshiisa oo dhan maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda cilmiga baro maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda wax baro maruu isagu ilaahay la munaajoodo iyo maruu dadku sida ilaahay u baryaan uu u sheego noloshiisoo dhan wuxuu ku dhammaystay bayna cibaadatin wa cilmin wa dacwatin buu ku dhammaystay markaa 60kaa sana 70kaa sana ilaahayna siiyey waxaa laynoo keenay adduunyada walaalayaal inaan ilaahay jala wacala aan kula baayac mushtarayno khulayd binu cabdillaahi baa yidhi muuminka 3 meelood in laga waayo maaha buu yidhi 3 meeloodun baad leedahay masjidun yacmuruhu wa beytun yasturuhu wa xaajatin laa ba'sa biha buu yidhi 3daa ayaa qofka muuminka la doonay wakhtigiisa inuu ku bixiyo masaajid uu camiraayo mar salaad buu ku tukanayaa mar qur'aan buu ku akhrisanayaa mar cilmigu culummada ka baranaya mar dadka muslimiinta bilaa salaadee dayacan ayuu u fikirayaayo intuu ziyaarto ayuu masaajidkii culummada iyo cilmiga iyo khayrku ugu yeedhayaa wa beytun yasturuhu qofka muuminka meesha saddexaadee la doon in loogu yimaado aqalkaaga wakhtigaaga ku bixiyo ciyaalkaaga islaantaada la fadhiiso asxaabta rasuulku maskiidka markay joogaanna arday bay ahaayeen guryahooga markay togaanna mucallimiin bay ahaayeen mujtamaca kale markay dhex socdaanna muballiqiin bay ahaayeen difaaca diinta markii loogu yeedhana mujaahidiin bay ahaayeen maskiidka markay joogaan arday abubakar baa wax baranaya oo cumar baa baranaya oo cali baa baranaya oo cuثmaan baa baranaya tacliim wa tacallum rasuulkay ka baranayaan calayhi salaatu wasalaam marna dhexdooday isbarayaan markay guryahooga tagaanna waa maxay waa mucallimiin weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwa ilaahay ee nebiga rumeeyeyow reerihiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi cali ibn abi aalib wuxuu ku fasiray waa reerkiina diinta bara weeyaan macnuhu madarasad iyo malcaamad iyo jaamacad magaalada madiine cahdiga may lahayn nin kastoo saxaabiya aayadda qur-aanka iyo qowlka uu nebiga ka soo maqlo ayuu habeenka reerkiisa ula tegay uu reerkiisa barayay markaasaa mar keliya iyo ciyaalkii iyo dumarkii iyo raggii waxay noqdeen dad cilmigoogu meel keliya wada socdo oo cibaadada meel keliya ka wada socda oo diinta meel keliya ka wada socda oo fahmiga diinta meel keliya ka wada taagan mujtamaca waxay noqdeen hadday 500 oo ninoo martiya maanta maskiidka nebi maxamed ay timaado meeshii lagu marti qaadayeyna waa diyaar aqaladii diinta lagu barayeyna waa diyaar mujtamac cajiib weyaan mujtamacaasi guryahooga markay tagaanna mucallimiin bay noqonayeen mar alliya markay dadka kale u tagaanna muballiqiin aladiina yuballiquuna risaalaati اllahi bay noqonayeen difaaca addiini wاlwaطan diinta markay noqoto difaaceegana
mujaahidiin bay ahaayeen bilmaali wannafs naftoodii maalkoogay diinta ilahay ku difaacayeen marka muslimka waxaa la doonayaa waktina masaajidkaaga sii waktina gurigaaga reerkaaga iyo ubadkaaga sii waktina waxaa lagaa rabaa inaad ka shaqaysid kasbi xalaala saad xaaraan uga badbaadid saad mas'alada bini aadanka aad uga badbaadid saad u noqotid yadulculya gacanta sarraysa ee la baxaysa sadaqadda buu nebigu yidhi ayaa ka khayr badan tas hoosaysa dadka wax weydiisanaysa saddexdaa sifaa qofka muslimka laga doonaya saddexdaa meelood laakiin innagu soomaali haddaana dabeecaddeena ka warrama dabeecaddeena ayaa naga bedeli dad adduunka maqaaxi uun fadhiyo shaha cabbaaya oo sheekaynaya oo waxa caalamka ka dhacay la socda soomaali un baa la hayaa maanta aan ka sheegaya baytulmaal waddannada eshiya waddan ka mid a ayaa nin caalima oo madarasad haya ayaan ziyaartay luqada carabigana xabad xabad yar buu tuuranayay markaasuu yidhi min ayna markaasaan ku yidhi min jibuuti markaasuu yidhi qariib min maka markaasaan ku yidhi ma samictu طيب صومال قريب من مكة ورا هالكانوا شيء أرض الحبشة قريب من مكة مكة هي مدينة هي عيال كقرآن كودي جاي مويانة عالم كواحد كسر وربك ما هيو سنة كنا وحلا جاي أبا كنتن أرضيا وحفظت كتاب الله إنه صار صومال محو صار بالشك أفرت السنة كهر وحي ودك إنه كنت ما يبالي هذا لا يا إلهي مكة وما تصعدان وما تشاكين إنسان وما دوحانو بدنها وحال لو ديرن كو مشغول سن سيدا مركا هرمرا كو غارينا ورلبادن اندودا كوكو تالبا لغو ليه إلا أدويدادا كو إيغو إلا آخرadaada ku eego waqtigaagina saddexdan u qaybi 8 saacadoodna waxaad ku camirtaa masaajida 8 saacadoodna waxaad ku camirtaa reerkaaga iyo ubadkaaga iyo naftaada xaqeega 8 saacadoodna waxaad ka shaqaysaa kasbi xalaala maxaa ka tagay baliisha 8 saacadood masaajidka salaadii baad ku tukan waad ka soo horeyn waad ku dambayn quraan baad ku akhrisan dhikri baad ku samayn xalaqadaad ka qayb gali culimada dhageysan dadka caamada dayacan ee cid u damqanaysa cid u tagaysa aynan jirin ee waliba dhalinyarada u badan ayaad gacanta intood soo qabatay masaajidda keenay yaa ghulaam aslim ghulaam yahuudi oo nabiga u khidmeynaya calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigu tabay away uu bukaaba lagu yidhi lugihiisu ku socdo nabigu yarkeera uu tagay لأن مركز النبي قال يركي رايو نفط هديته لقيق راي هيسو سكرادا حقا مدح النبي كفر يستي مركز يري يا غلام أسلم اسك إسلام مركز يركي را أبيه بيقو كبقي أبيه با إلى هاي كسيي أطيع أبا القاسم أبا وركي سيال فأسلم الغلام يركي را أو إسلامي وعو النبي كسو بحي قرقي إسوغ وجهي سفر حد أي كم وقت أولي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار إلها وحن كو حمدنا يا كاير سببتين نارتك قبت بادية بما هل برسولك يري يذهب إلى الناس اللي ما ديهي سينيين أي أقعد كيسين أصبرين هذا يقول أصبر بان نبي قال لي صبر إني دلان باي كفكرة يعني يكو اسنوه كفكرة يعني هنونان كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي النبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا إساقا اسكو جيدا ما عدك الوحو جيدو وإساقا كديقا لقد هذه قومكيسو أي دقحييين قومكيسو أفلقاديين وجهكيسو الشريف قنوفتا لقدتو في وإساقا عليه الصلاة والسلام انتو اسكا مسحو انتو ديقا اسكا بيه مالنتي ماركتانا يوم الطائف أيو لها وحا يقود ليان قرن معياني وقوم كيقي لها ودن بدافو لها أبين هذا كمدا أيو النبي صلى الله عليه وسلم
caaisha gurigaygu ku qornaa caaisha almu'miniin markaasay nebiga hoosta ka soo gashay wuxuu yidhi caaisha caawa maydayn buu ka yidhi rabbigay haan caabuday caawa ma iska kaydayn markaasaan ka yidhi bay tihi haa waan ku daaye iska cibaadayso markaa buu nebigu istaagay labada aayadood siduu ugu celcelinayey ayaa bilaal salaaddii fajaruu bilaal u addimay in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim habeen dhan lilmada ka dhaadatay ilintiisa halkuu sujuudda uu dhulka dhigayay bay lilmadu qoysay labada aayadoodna macnayga waad garanaysaan aayadda hore waxa weeyaan ereyga nebi ciise calayhi الsalaam uu banka qiyaamo ku odhan doono ilaahay hortii uu isku beri yeeli doono ayaa nebi maxamedna ifka dusheeda uu ku lahaa oo ereygee anta qulta linnaas itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah yaa ciisa bna maryam ayaa rabbilciza ku odhan doona maalinka qiyaamaha maadaa ku yidhi qowmkaaga reer bani israa'iil aniga iyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigtoona caabuda maadaa ku yidhi markaasuu nebi ciise isberi yeelayaa markuu isberi yeelo buu odhanayaa haddaad cadaabaysana dee waa addoommahaagii haddaad u dembi dhaafaysana dee amarka adiga iska leh ereyga nebi ciise uu banka qiyaamo odhan doono ayuu nebi maxamed ifka dusheeda ku lahaa xataa nazla jibriil calayhi salaam markaasaa lagu yidhi yaa jibriil u tag muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka baa ilaahay ku yidhi yaa jibriil u tag muxamed xabiibkaygii waxaad ku tidhaahdaa ummaddaada waan kaa raalli gelin doonaa kuguna dhibi mayno adiga baa lagu yidhi waan siin doonaa ummaddaada siis aad raalli ku noqon doonto kuguna dhibi mayno yaka wax adiga dhib ku geliya ka yeeli maynaba yaka baa lagu yidhi markaa buu nebigu lilmadii intuu iska biyey ayuu salaaddii subax nebigu saxaabada tujiyey aawey dareenka iyo shucuurta maanta ikhwat aliimaani waalislaam aawey shucuurtaas cidna uma maqna ummadda walaalayaal inteenna saalixiinta ee masaajidda soo galaysa ee culammada dhegaysanaysa ee diinta jecel ee diinta baranaysa ee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala u damqanaysa innaka laynaga rabaa ummaddan aan u fikirno oon wakhtigeenna 8 saacadoodna masaajiddeenna ku camirno waa mar waa xalaqad weeyaan cilmiga la baran mar qur-aanka la akhrin mar dikri baa la samayn saacad baa la fadhiisan sidii abu darda radia allaahu canhu markii la weydiiyey la abu darda saacad wakhtigiis cibaadadiisa ugu qiimo badan noo sheeg baa lagu yidhi xaaskiisa waxay tidhi wuu fikri jiray tidhi bas cibaadada ugu qiimo badan uu abu darda uu lahaa fikir keligii intuu meel fadhiisto ayuu ka fikiri jiray ilaahay cadamadiisa ayuu ka fikiri jiray diinta ilaahay 8 saacadoodna kasbi xalaala 8 saacadoodna xaqa naftaadii xaqa reerkaagii xaqa ubadkaaga salmaan iyo abu darda buu nebigu walaaleeyey salmaan iyo abu darda salmaan baa soo ziyaartay abu darda xaaskii abu dardaayo wuxuu arkay umu dardaayo jirkeyga ay ka muuqato nafaqa daro oo dharkeyguna maaragtaane ku dulgoogo'ay markaasuu ku yidhi waa maxay noloshan aad ku nooshahay waxay ku tiri saaxiibkaa dee nin adduyo u baahan maaha adduyo ummaddoona uu ka qaaday tiri faraha way dacwaysay moogta walaalkaa abudarda salmaanoo walaalka abudarda laa yuriidu dunya nin adduyo doonaya maaha isagaa dee noo shaqo tegi lahaa oo dharka naga bedeli lahaa oo masaarif noo keeni lahaa soo ma ahayn ha isagaa naga mas-uul ahaa nin adduyo maaha faruu ka qaada adduyo hal waayahay waa sugi uu fadhiistay abu dardaayoo socdaa yimid markaasay ku tiri war walaalkaa salmaan baa fadhiyo ku sugaya dibadda markaasuu uu yimiday uu salaamay cuntay markaa ayuu soo qaaday cuntadiibuu u dhigay markaasuu ku yidhi dee fadhiiso ila cun markaasuu yidhi maya anu waan soomanahay soonka jabi buu yidhi la cun waa sunnee uu la cunay
habeenkii bay markaas garab seexdeen mar alle markuu salmaan uu dhinaca dhulka dhigay uu abudardaana uu leeyahay salmaan uu kaa seexday markuu yidhi isla markiiba abudardaa salaad buu u kacay salmaan baa yidhi war yaa seexo seexo jooji salaadooda uu seexiyey bal si fiican hadalka u dhegaysta meel baan u socdaa hadda kolkuusina malaha uu kaa gamay buu haddana yar kacayo markaasuu yidhi war seexo mar kana uu kaca kana uu seexiya kana uu kaca kana uu seexiya waqti saxar saacadihii dambe yuu yidhi imika ka haddaba ha wada tukana labadeenu wey markay wada tukadeen ayuu fadhiisiyo wuxuu ku yidhi war yaa abudardaa ii dhegayso rabbigaa xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin naftaaduna xaq bay kugu leedahay dee mid walba xaqiisa sii buu ka yidhi iska aamusa abudardaa ilaa waa nin xalay salaata leelkiisa laga kala daadiyey oo soonkiina laga jebiyey weliba dardaaran la siiyey ma hadhine intuu soo socday buu nebiga ku soo dacweeyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah salmaan baa ii yimid oo soonkaygiina uu iga jebiyey salaata leelkii xalay tolana uu iga manciyey adoo halkan joogoo marjicii dhannaaya ayuu hadalkaa isaguna iigu yidhi markaa nebigu muxuu yidhi sadaqa salmaan muxuu yidhi sadaqa he muxuu kugu yidhi wuxuu igu yidhi naftu xaq bay kugu leedahay ehelku xaq buu kugu leeyahay rabbigaa xaq buu kugu leeyahay dee mid walba xaqiisa sii markaa buu nebigu yidhi sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay buu yidhi xadiiskaa ninka lagu akhrinaya waa abudarda mise waa innaka bal ii sheega xadiiska ayuu ku yimid ninka habeenkiina salaad u taagnaa habeenkiina salaad u taagnaa maalinkii oo dhanna soomanaa adduunyana faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimid waa ninka ma ahayn anigii adiga maaha daa'iman jamaacadda waa iska taqaanaanoo nin baa beri 40 cisho aan kaxaynay mid baa qabto xadiiskaasu ku akhriyey markaa buu yimid wuxuu yidhi sheekh xuseenow anuu inima raacaya buu yidhi hee xadiisaad iga qariseen baa lay sheegay buu yidhi markaasaan ku idhi muxuu haddee xadiis way badantay annagu culummo ma nihine arday wixii culummada ka soo maqleen dadka u sheegaanahay muxuu ahaa dee xadiisku waa sadaq waxaa laygu yidhi naftu xaq bay kugu leedahay islaantu xaq bay kugu leedahay rabbigaa xaq buu kugu leeyahay dee markaad islaanta iga soo kaxayseen ee adduunyadii iga soo kaxayseen dee aw xuquuqdiisa uma dayicin buu yidhi war xadiisku waa sax weeyaane adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeenii baa dulman maanta wakhtigeennii adduunyadu u batay mise aakhirada bal iga jawaaba midku u batay wakhtigeennii adduunyuu u badan yahay qalbigeenna maanta maxaa ku weyn adduunye mise aakhirada adduunyadaa ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadha way taabanaysaa saa darteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican waana walaalo ilahay baa walaalo ka dhiga muslimiinta waxay walaalo ku yihiinna waa maxay alislaam diinta islaamka walaalo ku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonaya walaalayaal oo qofka muslimka kale waa walaalkii walaalka muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso calaa kulli muslimin sadaqa waagu markuu barya buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu yidhi hadduu haysanna fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysan uu siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn sidaana markaasuu nebigu yidhi yuciinu da alxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu ay haysatee madluumka ayuu xooggiisa ku caawinoo uu u gurman oo wuxuu leeyahy war ninkaa waa laga gardaranya gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduuna sidaa samayn baa nebiga laga yidhi wuxuu nebigu yidhi ya'mur bilkhayri dadku wanaagga fari hadduuna sidaa samaynna sharkiisuu ummadda ka haysan uu meel kala fadhiisan intaabaa qofka muminka sadaqa ugu filan buu rasuulku yidhi
war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayey sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiista ay sordhig sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa dilkiisana waaba lagu gaaloobaa buu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiinta walaal waa walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa ghaswadii yarmuuk 3 nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid a ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horreeye la gaadhay wuxuu leeyay biyo igu qabta cikrimu ahaa markii biyihii la yidhi hal lagu qabto hal la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kaleoo ka shisheeyoo leh biyo markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadhay biyaha kii baa lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonay ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninna uu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayu leey isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anu han dhinto walaalkay ha noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anu ha noolaado aadu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol ma aha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa joogee muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaad ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiisku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culammada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji maskiidkii nebigeennu soo galay alay slat slaam waa khasraji halkaa waxaa fadhida ansaar aws khasraj muhaajiriin xalaqad wuxuu dul tegay bilaal iyo salmaan iyo camaar ay fadhiyaan markaasuu yidhi kuwa haddeetoola maxaa looga baahan yahay buu yidhi kuwa ninku tolkii buu hele mucaad binu jabal baa ninkii halkaa qabtay war maxaa tidhi waan kaftamayna hadalkaana waan idhe markaasuu mucaad halkaa isagoo hayuu nebiga ninkii u geeyey sal lla alay slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmay masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyadduna aabba iyo hooyeynima buu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyadda ku hadalkayga bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu yidhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna
وحر كوا محل وقبع هدته وبلال بلال الحبشي سلمان الفارسي صهيب الرومي رضي الله عنهم رقي الدين الإسلام كأساس كوها أيو كلها كوا محل وقبع نكو تلكي به هدته ولا كلمة دا أو يربى إلهي نك الرحمة كلا نقض مر لبعض ودين إلهي وكقات سوق مرتدين للصود لي مركا إخوة الإيمان والإسلام خير بين نجا موضع ضد المسلمين واللغة كلها كوها الله يانا هاي نكو إلهي بين نجا دقي وإلهي وإنه نعمة والله نعمة دا هاي سومالي دو هاي ستو عربتي دين اللغة دو كسود دكتما هاي ستمانت مساجد هي علماء هي أرضي حفظة كتاب الله هي مارك تاني مدارسة هي النشاط كالدعوية إيه مين اللي ماشي الصومالي أي دكتورن ما أنت كالسعودة عربتي قرآن كل لغة ودي الدلك وقصود دقي والله نعمة دا هي سمانت أيان دويت عنكم مدينة المنورة جونا ربنا حش كيمك مطعما كعنتيني نبان يان كو أرين اللي يرو سعودي أو سروال قابن هالكا كو جوجا سيتا جوار مسجد النبوي أكتيس مطعم مساجد كي نبي محمد أن كدرين أي سروال قابن سيتا شيخ إسماعيل بايقر رب الحسين وياك بيدي هانا يا قابن كيدي شيخ أو حلقة مرودة جبوتي أو ودن وقال استعمار سنة يينا سقا شمية دي بان نقود دم بيسي قف سروال قابن قاطع waxaan ka wadaa nicmada inaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacwiga masaajida iyo bi'ada diiniga ee mujtamaceena luqadeena ku hadlaya ilaahay siiyay war waa nicmo ilaahayna siiyay ilaahay aan ugu mahadino la in shakartum la azidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukru aljawaarih bilhamdi tadumu ni'am وبالشكر تزداد النعم حمدك وكعرب كويان شكرك وكعمل كويان صلاة الليل كنبي وكعي ركعات كلي وكنت كذا شن جزء بد إلى لغيه برين عائشة كتري لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر محوك جوابي أفلا أحب أن أكون عبدا هذا هو الشكر marka nicmada ilaahayna siiyayna ku shukrino oo masaajideena tacliinteena dacwadeena khayrka ka wada shaqeeyna soo diyaar manihin insha Allah dhahada waan soo ziyaaranay saad noo soo dhaweyseen ardaydiina culimadiina quraadiina Allah inii soo dhaweeyay ninkana anaguna Djibouti waan ugu soo dhaweynaa noo kaalaya insha Allah ya reen Nairobi rays li ma socotaan maxay nagu dhacay waxu baad dhisaysan aqla dhaadheer إن شاء الله خير كانوا وانبيريننا صو ديار منهن ذنبنا الله ضاف ذنبك والدينتنا الله ضاف دينت الله إنه معانيو مركنا الله شافيو موتاتنا الله ونحريست مسلمين تميل جوغان كربدا يعريرك الله كقاضو موافقين من ضمن مسلمين تميل جوغان الله سيو اسمع ذكر الله إن هديو صلى الله على نبينا محمد